subxaanahu watacaala noo ogolaaday inaan wejiyadan quruxda badan hor nimaano noogana sii hormariyey inuu roob nagu waaberisiiyo. intaas kadib waxaan maanta idinkugu nimid oo asalkeedu ay tahay ugu horreyn horta yaan ilaawinay waxaan aad ugu mahad celinayaa maamulka iyo macallimiinta iyo ardayda iyo howlwadeennada dhammaantood Cumar Samatar. run ahaantii dadku way kala duwan yihiin, nin walba oo dunidan ku noolna aragtiyaha uu arkayo iyo sida uu nool yahay waxay hadda ku xiran tahay dadka uu rabo inuu la noolaado dad cankee ah wey. sidaas darteed madasha nabadda iyo isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug waxay arkeen gobolkii oo dagaallo fara badan ay ku soo noqnoqonayeen. waxay arkeen gaalkacyo si gaar ah oo dagaaladeedu ay aad u fara bateen. waxay arkeen bulshadii walaalaha ahayd oo sii kala wala hoobaya. waxay arkeen ayagoo oo bulshadii isku dhex nooleed oo dhalinyarada yani u badneed inay maalinba maalinta ka dambayso xaaladooda ay sii wanaagsanaanayn laakiin ay xumaanayso. sidaas darteed waxay garwaaqsadeen inay bulshadooda ay ku noqdaan si gaarana inay dhalinyarada iyo ardayda iyo aqoon-yahanka wax qaadanaya oo wax fahmaya inay ayaga dib ugu noqdaan una sheegaan iyagu waxa ay laga rabo inay qabtaan, iyagu waxa ay tahay inay qabtaan, iyaga waxa ku waajiba inay wanaajiyaan. saas darteed si gaara waxaan garwaaqsanay maamul Siciidna ay maqlayaan, waxaan si gaara u garwaaqsanay in Cumar Samatar yahay iskuulka ugu ardayda badan. waxaan ugu nimid markaan aragnay dadii isdhexgalka dhalinyarada gobolka Mudug waxay arkeen gobolkii oo dagaallo fara badan ay ku soo noqnoqonayeen. waxay arkeen gaalkacyo si gaar ah oo dagaaladeedu ay aad u fara bateen. waxay arkeen bulshadii walaalaha ahayd oo sii kala wala hoobaya. waxay arkeen ayagoo oo bulshadii isku dhex nooleed oo dhalinyarada yani u badneed inay maalinba maalinta ka dambayso xaaladooda ay sii wanaagsanaanayn laakiin ay xumaanayso. sidaas darteed waxay garwaaqsadeen inay bulshadooda ay ku noqdaan si gaarana inay dhalinyarada iyo ardayda iyo aqoon-yahanka wax qaadanaya oo wax fahmaya inay ayaga dib ugu noqdaan una sheegaan iyagu waxa ay laga rabo inay qabtaan, iyagu waxa ay tahay inay qabtaan, iyaga waxa ku waajiba inay wanaajiyaan. saas darteed si gaara waxaan garwaaqsanay maamul Siciidna ay maqlayaan, waxaan si gaara u garwaaqsanay in Cumar Samatar yahay iskuulka ugu ardayda badan. waxaan ugu nimid markaan aragnay dagaallo fara badan oo dhacay Mudug wey. midkoodna qori laguma waardiyeen ma ku halkay gaari bay wateen horta iskuulkuna taagaya. waxay halkaa u yimaadeen waa iyaga oo ka fogaaday qalbigoodana ka xaaray wax walba oo dhibaato geelin kara. wuxuu diiday inuu shakiyo, hadduu shakiyo waxa weeye inaad gaariga iska dhigtid, haddaad baqdinna waa inaadan soo tegin. nimankan shakiga way iska saareen, gaari way soo qaateen, baqdintiina way iska daayeen oo way soo tageen. sidaas darteed waxaa la rabaa arday walba oo Cumar Samatar dhigta message-ku qaadayo waxaa la rabaa inuu noqdo nabad baana deeqda. mar walba oo aan dunidan ku noolnahay qof walba wuxuu ku qurux badan yahay, guri walba wuxuu ku qurux badan yahay waa nabad. maalinta odag iyo habarta isdagaalaan oo gurigaas la isxagxagto guriga wax ka foolxu lama arko. islaamtu muraayadahay jijibinaysaa, gurigu waa beeroobayaa, la iskuma dhowaanayo. maalintii dagaalka alkaxya ka dhacana darniigyadeeda weligeed rinji la marsan mayo. saas darteed waxaa la rabaa marka iskuulka wuxuu ahaa iskuul macnaha maamulka iyo aad bay noola heelanaayeen runtii. barnaamijkana ayagaa markii hore noogu ahaa meesha noogu weyn oo nala waday noo ahaa, laakiin arrin farsamo awgeed ayaa wax qaldameen. intaasna haddaan uga baxo madasha nabadda isdhexgalka badankiin waa ogsoontiin baan malaynayaa howlaha barnaamijka ay ka waday magaalada wixii ay ka bedeshay xaaladdu sidii ahaan jirtay dhalinyarada iyo isdhexgalka iyo hadda meesha wax marayaan. waxaan filayaa dhammaantiin social media waa isticmaashiin, waad garanaysiin, saaxiibadiina waad aragtiin maalin walba iyagoo ku haya 5 star baan ka qaadanaynaa maanta. sugulaan joognaa hadduu ilaahay halkaas hebel bay soo dhaweeyey. runtii xaqiiqatan markaan ka hadallo markii aan shaqadan bilaabaynay waxaan isku helaynay ama laba ama saddex wax la mid ah ayaan
ayaan hawshan ku bilownay kalsoonida aad u hooseysay weliba dhalinyarada iyo dadka jiilka soo koraya ah wax xiriir weyn kama dhaxayn iskuulada warkooda dadka wada xiriirayay waxay ahaayeen dad maamul ah ama siyaasad ku jira ama dad seminar iyo wax la mid ah workshop la isugu keeno kala taga laakiin dad sindiyada u shaqeeya oo arrintan u taagan oo ay ka go'an tahay ilaa iyo meesha u dambaysa inay la gaaraan ilaa ay ka arkayaan in bulshadoodii oo saddex gashay ilaa ay ka arkayaan ummadii oo gaalka iyo dhinaca ka dhinac isku mid ka noqotay anaga targetka iyo kaas weeye ilaa aan gaarana kama harin haddii ilaahay yiraahdo waad mahadsantihiin hadalkeena ku badan mahayo waxaan jeclahay kelmadda muhiimadeeda inuu yiraahdo ninka ka dambeeya qorane oo gudoomiyaha golaha fulinta ah waxaan idinka codsanayaa baad Cumar Samatar iskuuladii kale way ugu dambeysay waxaan iyo ardada qiimaha badan ee iskuulka Cumar Samatar aad baan ugu faraxsanahay inaan saaka taaganahay iskuulka qiimaha badnaa oo madax badan oo Soomaaliyeed qaybo kamid ah ay maanta wasiirro iyo xildhibaano iyo madax kale oo mas'uuliyiin ay ka soo baxeen inaan saaka hor taaganahay waxaan rabaa marka hore inaan kaftan yar ku hormariyo xanfartay hadda wuxuu yiri dhalinyarada ka timid dhinaca galmudug cid ka baqaysa ayagoo jirin bay yimaadeen waa sax bari dhexe baan waxa qabanay banaanbax marka Cumar Samatar waxa la yiri waa baqeen maalinta أروح مركز ساعة كوفت كسر تجي وما حنسكها ليني أنا كمان شاف ده أروح أنا استمر أنا اسكو أف أنا اسكو دين ولي بقى قار أديك إذا كمية أنا أبتيال عدي أنا أبتيال واحد دوني هذا روح الشخص هنقعد هاي استاو أبتياش ولا متشيده يعني يا أنهش تكسر جيده حقه ولا متشيده لكن واحد وينك محل يده عبد الغني عبد الله بالي هذا ولا جاي بقول كلام دوماني إني كذا أنا هدو gabdhuhu marka ay cidaan abti ah ay istaageen ayaga naftoodu waxay sideen wala ka aarsan doonaayo waxaan isku haleynay marka kalsooni inta le maxay yeelay hadaan wadada marayo oo soo jeedo iyo xataa hadaan sii jeesto maxaan uga bedelanahay waxaan marka kalsoonida inta le waa idin dambi dhaafayna maalintii maraabaxa nagal soo qayb gal weysin jeedka maraabaxa u qabanayna wuxuu ahaa waxa aada iyo dhaqan noqotay bisha 11aad ee sanad kasta in dagaal magaalada ka dhaco anu waxaan ahay arday jaamacadda Liiga Gaalkacyo University dhigta mar kasta waxa labadii dagaal ee u dambeeyay iga dib dhacay imtixaankii iyo xataa semesterada qaar ba isdiiday oo wareeray sida marka daraadeed dhalinyartu waa fikray wax yiraahdeen maxaa samayn karaa odayaasha dhaqanka oo kontonka sano kor u dhaafay siyaasiyiinta يعني هذا الكسيد اللي يقدر أدب أدقين لكن شيء كدنبه إن واحد يسلفه من الله شل قابي أدب وعنده عمر سمطر وسير كأريمة جودها وهذا دولة فدرالية الصومالية وشاقين وكسب kusoo dhaweeyo qaybo kamid ah dhalinyarada ama madax kusoo dhawow